الرابط العالمي الإسلامي هيئة بيلاد الإرادة هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إعجاز كعلمي هي قرآنك هي السنة كصابسا ساينتيفيكا. مثلا شيخ زنداني مركو مدحدا كان هانجري هيئة داسي waxay sameeyeen buxuus aad u tiro badan leh. waxaa jirta 14 nin oo khubarada dunida ee la tilmaamo ah oo cid waliba fanni gaar ah khabiir ku tahay ayay dooda la galeen. 14 kan nin doodahay la galeen waxay u samaysanayd su'aalo la weydiinayo. مثلا todobada nin ee cilmi lajinna dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo. toddoba nin baa jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin science-ka embryology iyo waxaasi ku saabsiisan cidda loogaba dambeeyo dunida. waxaa ka mid ahaa ururka science-ka qaybtaasi ee North America oo dhan ninka haystay Canadian-ka Keith Moore la yidhaahdo. Keith Moore wuxuu leeyahay book Human Development ama Human Embryology-ga buugiisan la yidhaahdo 8 luqad ku qoran yahay mostly jaamacaadka dunida waa buugga u ah reference buugga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba. waa ninkay ku tilmaamaan abu cilmi lajinna fi Canada aabaha cilmiga janiinka. qadiyada tan markaan bilaabayay buu Zandani leeyahay waxaan arkay buu yiri anigoo mas'aladan baxtinaya ayaan 14 filim oo ku saabsiisan ilmaha uurka siduu u koro oo 14 kaba la leeyahay waxa taxqiijiyay ninkan baan arkay. dabeetana nin caalim oo faniga kan aanu imo waxaan ku yiri buu yiri war ninkan Keith Moore kan muxuu yahay meel walba uu ku qoran Keith Moore. wuxuu yiri ninkan ma aqoonin ninkani waa abu cilmi lajinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aabay dunida ugu dambayso xagu joogaa baan ku yiri buu yiri waxa la igu yiri buu yiri jaamacadda Toronto ku taala ayuu joogaa ma lala xidhiidhi karayaa ninkii baan xidhiidh la sameeynay buu yiri markaan xidhiidhka la sameeynay waxaan idhi waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiino. welcome buu yiri kaalaya 8 su'aalood bay weydiiyeen oo soo qorteen. 8kii markuu uga jawaabay ay yiraahdeen 8ka jawaabood quraanka iyo xadiiskan ku haysanay. waxaan macquul ma ku hadlaysaa. waxay yiraahdeen 8ka mas'alo adigu aad leedahay dhawaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyay ama caynkan baa la xaqiijiyay intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadi iyo xadiiskii nabiga iyo aayaadka quraaniga bay ku taala. masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta bal yiri tusay nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyay 3 muxaadaro oo ku saabsan human embryology iyo quraanka isaga jeedinaya. markaas Zandani waxaan ku yiri buu yiri maadaama buuggaagu yahay reference buuggii dunida ay waxa kan u isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ka waramayso ee muqaddamada buuggaaga waxaad qortay cilmu lajinna waqtiga hore inaan waxba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane electronic microscope kan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval period kii ahdiyadii madooba inay tahay de taariikhdaasina sax ma aha anaga ku sheegnay wax laga ogaayo mid wax ka bedeshay soo qorbo ilaana ku qorayay waan soo siyaaqay buu yiri taariikhda hore in wax laga ogaayo sida wax loo sheegay inaanay hayna wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yiri dabeetana page buu ku daray buu yiri kitaabkiisa uu kaga waramayo taariikhda caynkan markii dabaano ima waxaan ku yiri buu yiri ma suurtagal tahay in طبعات كدبه بوغاغا كان chapter kasto aad ka hadashay quraan iyo xadiisku wixii ay ka sheegeen inaad ku darto soo qoro buu yiri. Zandani baa wuxuu leeyahay aniga Sheikh Ibn Baz iyo qoladaas ay isugu tagay waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii Soomaaliya markii 88 kii la qaxayay uu iga lumay buugaas oo tabacadii oo ku taalo nusuus walba oo chapter kasta oo kamida buugu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii axaadiistii ku soo aroray iyo sida loo define garanayo ama sida loo sharxayo. 14 nin oo culimada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen. Keith Moore kaasi uu kamid yahay Kroner meel la oran jiray odagii geologiga Jarmalka ahaa uu kamid yahay kii cilmi bahaarka Mareykanka ahaa niman kala gadisan
wuxuu ka duubay markii dambe musalsal TV oo la yiraahdo innahu alhaq baad heli kartaan isagoo kitaabana waxa soo saartay hay'a al-i'jaz al-ilmi في القرآن والسنة رابط العالم الإسلامي رابط العالم الإسلامي سجال بوك بيلين سجال بوك وكور رمية مسائل كاسي الإعجاز العلمي في القرآن وبوك استاي واحد جارك كور رمية يعني قضايات كان مركي أفريقيا طبعا كان المركو ضد الله صمين يا شيخ الزنداني يا علماء الله صعوته قاروا يا شهادتين مارشال جونسون اللي يرادون مريكاني waxaan markaan u yeedhnay ayaan su'aalo weydiinay buu markuu ka jawaabay ayaan nidhi waxaan quraanka ka warramay intuu istaagay buu yiri nonsense isagoo la istaagay buu yiri markaasaan nidhi buu fadhiiso waa buu fadhiisan waayay buu carad cadooday haddaan naga istaagayna baan ku nidhi buu yiri waan isla taagnay annana taagnidan kuugu akhriyayna waxaan nonsense ka leedahay baan ku nidhi buu yiri dabeetana waan u sharaxnaa akhrinay buu yiri markaas oo aamusa مارشال جونسون كان انت انا الله هادلين بويدي كيث موربان waxaan ku nidhi buu mas'aladan isay kula tahay wuxuu waxay ila tahay culimada sayniska buu qaarna waa ahraar oo fikradooda hadlaan qaarna wax kale ka baqaaniyo wax kale xeerinayaan dadka ahraarta ah oo dhammaan waa aqbali doonaa buu nagu yiri buu mas'aladiina tan markaasaan ku nidhi buu iyada ahraarta oo malaynaysa mas'alada tan aqbaan muu sharxi karnaa oo taga buu yiri Marshall Johnson waa Johnson kan ka cayaale nonsense جونسون كما كان uu sharaxnay buu yiri ka waranay qadiyada tan iyo quraanka iyo xadiisku sidoo uu tilmaamay ayuu wuxuu yiri markii dambe arintan ay sheegaysaan waxay kula tahay baan ku nidhi waa saddex midun buu yiri haye saddexda midku xagaad ku haysaa wuxuu yiri maxamed inuu mijhar haystay waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nidhi buu xadaaradu waa wada socota waqtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin quraankan laftiisa markay qorayeen wax kale ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleemo iyo harag dushii baa lagu qortay buu yiri ninka quraankiisii ugu sareeyay waa haystay baa harag dushii ku qortay miyaa microscope haystay baan ku nidhi buu yiri ilaanu maadadii dhameeyay la ilaalinayay baa wixii adawaadkii lagu ilaaliyo lagu qoray waxay noqotay baan nidhi buu yiri harag iyo dhagax iyo laf iyo wax la nooca dushii baa lagu qoray miya suurtagalnimada kale baan ku nidhi buu technology-gu wada socda ummadda telescope samayn karta ama microscope samaysan karta fiicani xagan kalena de technology-da gaadhina waa samayn karta waxna waa samayn karta waxan kale waa samayn karta technology-gu waa wada socda suurtagal ma habaan ku nidhi taa wuxuu sheegay baan filayaa kale dadkii ka horeeyay caynka hadda miyaad ku haysaa baan ku nidhi buu taariikhdii hore iyo wax sheegaya nooca kan iyana lama hayo كصدحات شيء سواء محيو كصدحات وحويان بيقولين وحن سبضة وقيمي إنه وحي يهي سكلانو عدا يوم قرن كرا إنه وحي يهي أو نبي الله وحي دويه كيس مركو مسألة تنكور رميي ومحاضرات كجامعات كقلي تي في كندو كقلي مركو يسود أيه وريه وحكيوري وانا نين بأكرسنا كساكرو مسيحية كي ورياها الرميون ملا دكار كجوا وحكوا عليه ويمكن ما واحد رمسات محمدين النبي هي أي دور قول كيث مر لقوا عليه كيث مر مركي إنما وحكوا لي نبي جماعها وحي محمد كسود دقيقة وحي عيسى كسود دقيقة أنا إلى هذا ما القرى كوضعي ماده أنا إلى هذا ما القرى كوضعي ماده وحي يعني لقادن كرواية وين جماعها بتلمامي